iyadoo dhawaan lagu xiray magaalada Brussels ee wadanka Belgium-ka Maxamed Cabdullaahi Aadan Tiici oo madax ka ahaan jiray maamulka Ximinixeeb iyo waliba Maxamed Cabdi Afweyne oo lagu eedeeyo inuu kamid yahay mid kamid ah burcadbadeeda ugu weyn Soomaaliya ayaa waxa arintaasi markii ugu horeysay ka hadashay safaaradda Soomaalida ay ku leedahay magaalada Brussels ee wadanka Belgium-ka. Dr. Ali Fiqi oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya wadanka Belgium-ka iyo midowga Yurub oo telefishinka qaranka kula hadlayay magaalada Hague ee wadanka Netherlands ayaa waxa uu sheegay in labada nin ee Soomaalida ee ku xiran magaalada Brussels ay si dhow ula socoto safaaradda Soomaalida ee wadanka Belgium-ka. waxaana Dr. Ali Fiqi uu sheegay in labada nin ay yihiin laba nin oo muwaadin Soomaaliya isla markaasna ay safaaradda u xil saartay qunsulka koowaad ee safaaradda. waxaana uu sheegay Dr. Ali Fiqi in ay ku sugan yihiin sidoo kale magaalada Brussels ee wadanka Belgium-ka qaraabada labada nin ee ku xiran magaalada Brussels. waxa intaas uu ku daray Dr. Ali Fiqi in qaraabadu ay la socdaan looyaro ayagana loo xil saaray in ay difaacaan labada nin ee muwaadiniinta ee Soomaalida ee ku xiran magaalada Brussels ee wadanka Belgium-ka. Dr. Ali Fiqi oo arintaasi ka hadlayeen waxa uu yiri anaga horta baarkiro laba shakhsi oo muwaadin oo la soo qabtay magaalada wadanka Belgium waan ogahay safaaraduna waxay u saartay qunsulka koowaad isagii ayaa booqday labada muwaadin dibkoodii iyo wuxuu soo ogaaday hadda waxaa jooga magaalada Brussels ku jaaray la socda abukaatyaal wadanka bisha ayaa lagu wadaa in Maxamed Cabdullaahi Aadan Tiici iyo waliba Maxamed Cabdi Afweyne maxkamad lagu soo taago magaalada Brussels ee wadanka Belgium-ka. ayadoo Maxamed Cabdi Afweyne la sheegay in lagu eedeynayo in uu qayb ka ahaa dadkii lacagaha faraha badan ka qaatay markab uu leeyahay Belgium-ka oo dhawaan lagu afduubtay wadanka Soomaaliya isla markaasna lacaga badan laga qaatay. ayadoo walina aan si rasmi ah loo sheegin eedeymaha loo haysto Maxamed Cabdullaahi Aadan Tiici oo la socday Maxamed Cabdi Afweyne. Maxamed Cabdullaahi Aadan Tiici iyo waliba Maxamed Cabdi Afweyne ayaa si xooga lagu soo qabanin ayadoo si xeeladaysan ay dowladda Belgium-ka ku soo xirtay isla markaasna muddo laga dhaadhicinayay in ay wadanka Belgium-ka ay ku sameeyaan film ka hadlaya burcadbadeednimada, taasoo markii dambe suuro gashay in dowladda Belgium-ka ay fiiso u dirto isla markaasna ay ku yimaadaan wadanka Belgium-ka markaas kadibna xabsiga loo taxaabay. Maxamed Xuseen Taajirow, telefishinka qaranka magaalada Hague wadanka Holland.